ورحمة الله وبركاته. halkan maanta waxaa ku shiray beelaha baajuun odayaashooda dhalinyarada iyo ururka haweenka halkan ku shiray galabta waxaan runtii oo la socotaa mas'ala socotiin in usbuucan uu yahay usbuuci goobnimada marka maadaama meel kasta hambali ay ka socoto beelaha baajuunna waxay garteen maaragtay in hambali u diraan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto hambali leenahay waxaan Soomaaliya hamadoodo Soomaaliya ha israacdo haddaan ugu soo laabto waxaan halkan horta ka salaameynaa galabta doomiyaha gobolka ana duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yariiso runtii hawlaha iyo dardarta uu wada hawlaha magaalada uu ka wada nadaafadda dhinac kasta iyo dhinaca bilacada magaalada runtii waa wax aad loogu farxo waanu ku taageersanahay waanu ku hambalyeynaa marka beelaha baajuun waa beel nabadeed waa beel nabadda jecel saas awgeedna waxaan jecelnahay mar kastaba qofkii wanaag suubinaya wanaagiisa in loo qiraa fiican aad iyo aad ayaad u dadaalaysaa laakiin runtii waxa weeye horta marka hore ilaaha kaamil ah bini'aadanka kaamil maaha waxa laga yaabaa waxyaalo qaarkood inaad ka dubsanto ama aadan ogeyn annaga waxaana beelaha baajuun deganna Muqdisho waxaana ka midnahay maaragtay oo deegaankan banaadir ka midnahay si marka hore ahaan jirtay beelaha banaadir waxay ka koobnaayeen ilaa 17 odayaal ahaayeen markii dambe arrimo siyaasadda dhacday waxyaalo dhaceen waxay noqotay in odayaal qaarna la soo dhaweeyay qaarna markii la yiraahdo idinka gaar u baxa marka mudan gudoomiye anaka waxaana beelaha baajuun ma lagu sheegay in hawlo badan soo qabtay wasiir xubno badan oo markii dawladda ka soo qabtay ayaa tahay waana wala socotaa maaragtay beelaha baajuun hala degayn jasiirooyinka degayn dhulka baaxad leh ee degayn wax la yaqaan waa aniga hadan kula hadlaayo 60 xogaa jira xamran ku dhashtay aniga inta fadhiso koobman inta kale xamra ku dhashtay qarada jasiirooyinka ku dhashtay laakiin markii dambe inta leemid shaqo waxa laga bilaabay waa lagu ilmo dhalay qaara markano xorriyadii kor joogay meesha halkan kor joogay oo guriga ku laaxata marka maanta mudan gudoomiye in beelaha baajuun oo albaabka maaragtay laga xirto xogaa taas dhiba u aragnaa in maaragtay odayaasha qaar la soo dhaweeyay oo la aqoonsaday la dhahay soo dhawaada qaarna maaragtay la yiraahdo maba jiraanbo anaka adduunyadan allahna keenay laakiin xaggaada waxa kaaga rajaynaynaa maaragtay inaad ka fiirsatid in odayaasha la mideeyo anaka daanahay odayaasha oo markii dhaqanka beelaha baajuun odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo hablaha mudan gudoomiye hadda gobolka haddii la fiiriyo intaasoo qabayl oo Soomaaliya ayaa ka wada shaqeeyaan annaga waxa ku xaqiijinaa hal nin oo beeshiya inuu meeshan shaqo u keenay taas maxaa ka dhilay badan gudoomiye saasoo tahayna hawlaha qabanaysid iyo waxyaalaha minaysidna aad ayaan kugu hambalyeynaa waana jecelnahay waana kugu taageereynaa laakiinse in la iloobo maaragtay gaar noo la bixiyo taas xogaa waa laga fiican yahay mudan gudoomiye hawlaha asid ilaahay waxa ka rajaynaynaa inaad ku guuleysatid in maaragtay meelaha ahigsanayso inuu ilaahay ku gaarsiiyo laakiinse waxa ka rajaynaynaa insha Allah maaragtay in beelaha baajuun in maaragtay liiska aad ku soo dartido oo xataa maaragtay qaar markano shaqaalaha markano nolol shaqaaleeyo waa ka rajaynaynaa insha Allah waan ku taageersanahay hawlaha awoodid waan ku taageereynaa beelaha baajuun sidoodaba ama hal shaqaaleysi ama shaqaaleysiina waxaan jecelnahay wadanka horumarkiisa aan ka jecelnahay wax baan yahay laakiin wadanka horumarkiisa aan waa jecelnahay waan ku taageersanahay maxaa wadanka nabad hadduu noqdo dadka dhan wada noolaanayaan nabadna waa wax lagu noolaan karo waa nabad kaliya marka mudan gudoomiye aad ay beelaha baajuun ku taageersan yihiin waan ku taageereynaa insha Allah intaasna ku soo jeedinaynaa insha Allah waan ku salaameynaa beelaha baajuun ku salaamayaan
سلام وقلتم أفرت أياكم سلامنا مدن قدومي أو قدام باش هرتان بلي كوسو درسا ما دام بريان لوgu jiro maalmihii go'doonka lagu jiro dal inta fadhiyaan hadii ku haysto hada dhageystayaal waqtan ugu yar maane heesi inta laga qaadaya xagga intii xagga kismaayo isku mid ahaayeen marka insha Allah waxaan jecelnahay mudan gudoomiye kaana codsaneena beelaha baajuun maaragtay in maaragtay maalin aanu qabit kula kulan aan ku aragno insha Allah ay ilaahay kaaga rajeynayna in maaragtay in aan kula kulan ayaan jecelnahay saas Soomaa beelaha baajuun waxay ka codsanayaan inay kula kulmaan ay ku arkaan insha Allah xaggaad ka rajeynayna waana ku dhowreena insha Allah وانا كدعينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somali tosoy skutir sadayoy had bakina tagdarane tagera weligine Somali tosoy skutir sadayoy had bakina tagdarane tagera weligine